gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waraysi gaara ku siinayay telefishinka Ariel ayaa markii ugu horeysay ka hadlay muranka ka taagan buuxinta jagadii xildhibaannimo ee uu dhawaan baneeyay alla naxariistii jannaha ka waraabiye Ibraahim Kacaan. gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay arrintaasi muranka keentay iyo sida xisbigiisu u arko. waa ka warqabteen anigu gudoomiyihii golaha wakiiladana muddo dheer marka hore u dhacday marar badan 12 jeer ama 20 ku dhawaad in ay banaanaato jaga ka mid ah golaha wakiilada ama geeriha ku banaanaato ama mudanayaal eriyaha noqoto horena uma dhici jirin in wax murane uu yimaado procedure-ka de sharciga inoo qorayaana waxaan jeclahay halkaas uu bayaamiyo markay jaga ka banaanato golaha wakiilada sida sharcigu sheegayo golaha wakiilada waxa ku waajiba inuu waraaq u qoro guddiga doorashooyinka qaranka oo uu jagadaas ka banaanaatay golaha wakiilada cidii xaq u lahayd u dira maxkamadda sare si loo soo dhaariyo marka waraaqda commission soo qoro golaha wakiilada waxay timaadaa guddiga doorashooyinka qaranka guddiga waajibkiisu waxa weeye iyaga hayo xogtii doorashada golaha wakiilada ee 2005 dhacday haday tahay mid goob iyo haday tahay mid degmo iyo haday tahay mid gobol iyo haday tahay tiradii guudba marka ayagana liiska haya sida kala horeeyaan berigaasana la qoray sida kala horeeyaan marka waxa idin waajibkoodu inay qofka ku xigay qofka baneeyay meesha ay u qoraan maxkamadda sare dabeedna maxkamadda sare ilaa soo dhaariya xubintaas una gudbiyo golaha wakiilada Xuseen waa xisbiga wadani ka tirsan yahay hadda marka kulli anigu shakhsiyan waxaan waafaqsanahay haddii Xuseen xaq u leeyahay in la siiyo hadday cid kale oo commissionku og yahayna in xaq la siiyo laakiin in la muran siiyo meesha kuma jirto commissionku waxa loo rabay in hal qof oo kaliya inay u diraan maxkamadda sare anigu ma arag waraaq qoray laakiin si la sheegayo 3 xubnood wax qariiba ba soo baxay 3 xubnood ayay u qoreen baa la leeyahay maxkamadda sare oo xubin ka mid ah nin aad loo yaqaan siyaasi reer Somaliland oo geeriyooday ka mid yahay marka xubin geeriyootay laba nool ayay u direen baa la yiri commissionku maxkamadda sare si ay soo kala saaraan marka sidii halka way ka yar khaldantay procedure-kii maxkamadda sare ee talaaba leeyahay waraaqdaasi marka waxa ila tahay in commissionku waajibkiisii ahaa inuu xubin qura u diro uu gudan waayay. gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu si weyn uga digay cid kasta oo arrintaasi faragelisa isagoo hoosta ka xariiqay in arrintaasi ay faragelin ku hayso xukuumaddu. laakiin aniga ra'yiga waxaan ku jirin baa meesha soo galay anigu wax tuhuna ma rabo inaan caddayn karayn inaan qabo inaan sheego laakiin bariyahan waxa la sheegay xukuumaddu ma jeclaan Xuseen Ciidid golaha soo galo laakiin halka waxa ila tahay commissionka arrintii de waajibkooda sida ahayd inay gudan u maraan qaba. ugu dambeyntii gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu ka hadlay sida uu u arkay xisbigiisu xalka isagoo arrinta ka hadlayana waxa uu yiri xalka waxaan u arkaa in de procedure-kii la saxo oo maxkamadda sare ku soo celiso commissionka oo ay weydiiso cid ay dhaarinayaan inay soo diraan 3 xubnood ka xaq u leh anigu hadday xaq u arkaan iyagu in uu leeyahay Xuseen Ciididna in la siiyo hadiina Muuse Abees xaq u leeyahay oo arkana de hasiyaan de xubinta dhintay sababta ugu soo dareena Allahu naxariiste Maxamed Iskaar soo ma garanayo halka mid kaftana ku dar lahaa waxaan lahaa hadii markii horeba ay xubno badan kale u dirdirayaan si loo soo kala saaro maxkamadda sare aniga Muusena malaay noo diraan bay hayna soo kala saarayaan bay hayd xalka waxaan u arkaa in maxkamadda sare ku soo celiso guddiga doorashooyinka qaranka oo ay yiraahdaan xubintii xaq u lahayd way dhaatada maxkamadda sare taala oo ti commission ku diray
aniga saasay iigu muuqataa. arrinta buuxinta jagadaasi bannaanaatay ee xildhibaannimo ayaa ilaa hadda guddiga doorashooyinku aanay wax wara ka soo saarin, balse arrintaasi ayaa si weyn loogu dhegtaagayaa halka ay jaan iyo cidhib ku dambayn doonto. Batri Koosaar Maxamuud, telefishinka Ariel, Hargeysa.